waa ku salaamay daawade waa muuqaal kale oo ku saabsan hawada sare ka waran haddii lagu yidhaahdo waxaa jira meelo lamid ah dhulka oo aanba ka duwanayn. Magacaygu waa Saciid Galeyr, halkaad daawanaysana waa janalka kalsooni ku noolow. inta aynaan bilaabin ka hor muuqaalka aan macluumaad kooban idinka siiyo wadada caanaha Milky Way. Inta badan Soomaalidu u taqaano urur waa xidigo xiriirsan oo la arki karo marka cirku uusan caad lahayn. Waxa ay ka kooban yihiin 100 ilaa 400 oo milyan oo xidigo ah. Hawada madow ee u dhaxaysa cirif ilaa cirif ama gees ilaa gees waxaa lagu qiyaasaa 2 milyan oo light year. Light year waa qiyaasta uu shay ku dhaqaaqo sanadkii, waxaana jiro in ka badan 100 milyan oo meerayaal ah sida dhul oo kale ah inay dhacaan gudaha majarada ururka. Dhulka aan ku noolnahay waxaa loogu yeeraa planet marka wixii la mid ah ama ha ka yaraadaan ama ha ka weynaadaane waa planet. Af Soomaaliga waa meerayaal. Majarada ururka ama Milky Way waxaa ka tirsan dhulka aan ku noolnahay, kadibna waxaan kasii tirsannahay dhulka aan ku wadaaye bahda qoraxda oo afka qalaad lagu yiraahdo solar system. Daawade weli maynaan gaarin halkii aan u soconay. Waxaa jira balaayiin majaradood oo hawada sare oo lama soo koobi karo. Insha Allah muuqaal ayaan ka diyaari doonaa majaradan ururka iyo majaradaha kale. Maalmo ka hor hay-adda hawada sare ee Mareykanka NASA ayaa sheegtay inay ogaatay waxay ugu yeertay dhul labaad telescope ee hawada u dirtay 2009kii. Ujeedkiisuna ah inuu soo indho-indheeyo sawiro iyo macluumaadyo ka soo ururiyo gudaha majarada Milky Way oo aynaan ku jirin bahda qoraxda oo inta badan la ogaaday noocyada kala duwan ee ka kooban yihiin. Ayaa waxa uu soo sawiray macluumaadyo badan oo uu soo diray ayaa lagu arkay wax ka badan 2700 oo meerayaal ah. Telescope-kan oo hadda noqday mid howlgab ah kadib markii shidaalkii ka dhamaaday ka hor intii aan hawada loo dirin ma jirin waxa laga ogyahay meerayaashaas tirada badan. Sida ay sheegeen cilmi baarayaashii la socday macluumaadka uu soo dirayay telescope-kaas, waxa ay sheegeen inay arkeen meero shabaha una eg dhulka aan ku noolnahay. Daawade dad baa tegay oo cilmi iyo hawada sare u dhaqaaqay halka aan ka fikirno reer hebel iyo reer hebel iyo waxaan loo baahnayn. Waa haddii aan nahay Soomaali Maryooley. Meelahan la helay waxa uu dhacaa majarad lagu magacaabo Red Dwarf, waxa uuna dhulka u jiraa 300 oo light year. Waa masaafo fog, laakiin marka loo eego masaafada ee majaradaasi dhulka u jirto ma foga ayaa la dhihi karaa. Cilmi baarayaasha ogaaday meerahan waxa ay sheegeen markii hore xisaabta algorithm oo kombiyuutarka ku falanqeynaya macluumaadka telescope-ka soo dirayo uu qalad sameeyey oo markii hore waa arki waayeen, laakiin mar labaad ayay go'aansadeen inay falanqeyn ku sameeyaan, waana markii ay ogaadeen in meerahan uu hawada ku jiro. Meerahan oo loogu magac daray Kepler 1649c hal jeer ayuu ka weyn yahay dhulka. Marka dhan kasta laga eegana majarada xidigahan uu dhaco oo uu ka tirsan yahay waxaa loo badinayaa inay taageeraan biyo dhac ama in biyo laga helo dusha meeraha. Cimilo roob ah ama sidii dhulka inay ku jiri karaan biyo hoos ka soo burqanaya. Xaqiiqda ayaana ah haddii meel biyo laga heli karo nolol ka jiri karto. Waxaa kaloo la caddeeyey in cimilada uu dhulka kala mid yahay. Dhulka aan ku noolnahay waxa uu qoraxda ka helaa kul gaaraya 75%. Sidoo kale meeraha Kepler 75% ayuu ka helaa xidigiisa. Markaan xidig leeyahay qoraxdaba waxaa lagu tiriyaa xidig ama waxaa loogu yeeraa xidig. Daawade marka cilmi baarayaashu baarayaan meerayaasha kow waxa ay qiimeeyaan cimiladiisa oo haddii uu meeruhu yahay mid aad u kulul ama mid aad u qabow nolol kama suuroobayso. Marka waxa ay raadiyaan meerayaal cimiladoodu degan tahay. Majarada aan ku noolnahay ee ururka ama Milky Way
weli lagama helin meelo soo dhoweeya dhulka. Ha yeeshee Kepler ayay ku sheegeen mid leh tilmaamihii ay raadinayeen. Meerahan ayaa ah mid aad ugu xiran qoraxdiisa una dhow, sidaa daraaddeed halkii sano waxay la eg tahay 19 beri oo dhulka ah. Dhulku waxa uu leeyahay 365 maalmood, waana inta uu qoraxda ku soo wareego. Maalmahaas ayaana sanad ah marka ay dhammaystirmaan. Majaradan ayaa lagu sheegay inay tahay mid degan oo nolol ay ka suuroobi karto, oo meerayaasha dhaca aadna uma qabooba aadna uma kululaasa yeeshee ma jirto in la tegay oo la soo arkay. Waxa laga hadlayaa waa macluumaadyo sawirro ah oo uu soo ururiyey telescope hawada sare loo diray. Sidoo kale ma fududa in la tago oo waxa uu jiraa 300 oo light year. Haddii bini'aadamku helo aalad ku safri karta 300,000 oo kiiloomitir halkii ilbiriqsi ama 18 milyan halkii daqiiqo, waxaa macquul ah inay gaaraan. Laakiin suuragal ma aha in jiilka hadda uu gaaro higsigaas, waana tallaabo looga tegayo jiilka dambe oo la leeyahay waa idin ogaanee idinku soo taabta. Ugu dambeyntii daawadayaal, cilmi baarayaashu waxa ay sheegeen inuu jiro meero kale oo dhaca majaradan Red Dwarf oo inta uu Kepler u jiro qoraxda kala bar u jira, sida meeraha Venus ama waxaara xirku uu kala bar ugu jiro qoraxda intuu dhulka u jiro. Haddii Allah idmo, waxaan arki doonaa mustaqbalka iyo sida wax isku bedelaan ama wax ay ku soo kordhaan iyo sida wax looga soo ogaado oo macluumaadyo kale looga soo ururiyo. Waana idiin soo gudbin doonaa daawadayaal wixii ku soo kordha insha Allah. Muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. Waxaan rajaynayaa daawadayaal inaad ugu yaraan wax aad ka faa'iideen. Intaynu ku kulmayno muuqaalkan muuqaalkiisa xiga daawadayaal, waxaan idin leeyahay nabadgelyo.